toddobaadkii hore waxay dhegaystayaal inoo joogtay arrimihii NFD iyo sidii loo raaciyay waddanka Kenya oo aan ka waraysanay Axmed Cabdi Oogle oo ka mid ah siyaasiyiinta NFD waxaana uu ahaa barnaamijkii lixaad imikana bal aan halkii ka sii anbaqaadno. dawladdii Soomaalidu waxay haddaba isku dayday inay la hadasho hogaamiyaashii reer Kenya waxaana magaalada Muqdisho ay ku marti qaatay Jomo Kenyatta oo ahaa xisbiga KANU iyo Ronald Ngalo isaguna ka tirsan xisbiga la yiraahdo KADU dabaaldegii gobonimada Soomaalida bishii July sanadkii 1962 labadooduba waxay istaageen arrinta NFD ay tahay mid daaqil ah dalka Kenya markii la isku afgaran waayay rajada quudaha ee la qabay waxa ay noqotay in lagu xalili karo arrintaasi hiyigii markaasi socday oo ahaa in la sameeyo federation ay wadaagaan wadamada Afrikada bari oo Ethiopia iyo Soomaaliyaba ay ka mid noqdaan riyadaasi oo markii dambe iyada la fahanteedu aan meel marin bishii Maarch sanadkii 1963 markii wasiirkii mustacmaraadka ee boqortooyada Britain uu ku dhawaaqay mowqifkii xukuumaddiisa oo ahaa NFD inay hoos imanayso dastuurka goboleed ee Kenya waxaa taasi ka dhashay in xiriirkii diblomaasiga ahaa ay kala goostaan jamhuuriyadda Soomaalida iyo Britain ama boqortooyada Ingiriiska waxaa markaasi Britishku ay siinayeen Soomaaliya gargaar dhammaa 1 milyan iyo badh oo giniga dalkan Britain boqortooyada Ingiriiskuna waa xiriirkaasi diblomaasiga go'ay ku weediyayna laliyaashii ku yaalay magaalada Berbera ee BBC-du ay lahayd iyo ogolaanshihii loo ogolaa in dayuuradaheedu ay dulmaraan hawada Soomaaliya mar kale ayaynu ku soo laaban doonaa goboladii Soomaaliya ay raadinaysay arrimahooda gaar ahaan sida loo go'doomiyay Soomaaliya marka ay timaado qaaradda Afrika ee aan imika dib ugu laabanno dalka gudihiisa dabcan waxa aan shaki ku jirin in dhagaystayaal waxa imika aad maqashaan inay u badan yihiin Soomaali ishaysa Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ra'iisul wasaare ka ahaan jiray jamhuuriyaddii Soomaaliya muddo 3 sannadood ka horna ahaan jiray wasiirka arrimaha gudaha ayaanu weydiinay balberigaasi sida dawladda iyo mucaaridku ay u macaamili jireen mucaaridyo badan baa yaa xukuumadii ka soo horjeeday oo sida runta mucaaridiyadaas badidooda xaqiiqadu siday tahay anoo hadda aan rabin inaan ku tacadiyo waxay ahaayeen mucaaridyo badidoodu ay ku xiran yihiin dawlado ajaanib ah oo iyagu ideolojiya ahaan uga soo horjeeday nidaamka Soomaaliya ka dhisna waqtigaas marka laakiin xukuumadda Soomaalidu waxay ku tala gashay in ay xoojiso nidaamkaas ay dooratay oo dimuqraadiga ah oo qof walba xaq leeyahay wixii ra'yigiisa inuu sheego oo qofkii dambi cad oo sida sharciga shuruudda u qoran aan gelinin aan lagu ciqaabi karin wixii uu sameeyo ama wixii uu sheego marka xukuumaddu aad iyo aad bay u taxgelisay xuquuqda iyo protectionka muxuu ahaa dadka mucaaridka inay ilaaliso laakiin anigu waxaan isleeyahay xaqiiqadu dadkii mucaaridka ahaa ma ay qiimaynin ma ay garanin qiimaha ay leedahay nidaamka dimuqraadiga ah oo iskama ay taxgelinin inay iyagu ku tacadifalinin muxuu ahaa dhinaca kale xuquuqdooda waxa la waxay doonaan oo badiba qaynuun khilaafsan ayay ku hadlayaan marka ma u malaynayo dhinacooda inay ka soo baxeen mucaaridiintu waajibkii saarnaayo waxaad ka warantaa مثلا tusaale ahaan Cabdirasaaq hadaad soo qaato waxyaabaha ku dhaliilaysay مثلا mucaarid waqtigaas jiray maxaa ka mid ahaa waxyaalahan ku dhaliilay hadda kuwa hadda aan bilaabay oo kale waxa ka mid ahaa bil xaqiiqati iyagu waxay ku dadaaleen wax alla wixii xukuumaddan muxuu ahaa dhaawici kara inayan ka gabanin been la abuuro iyo xataa mararka qaarkood muxuu ahaa xataa gacanqaadiyo iyo muxuu ahaa inayan ka gabanin haba yaraatee xukuumaddu hadday ka samayn lahayd calaashaan u warcelin lahayd dadkaasna waxaa laga yaabaa inay xataa xaq u lahaan lahayd waxyaalo badan oo sharcigu sheegayay laakiin waxaanu aad iyo aad ku baraarugsanayn xukuumaddii ugu horreysay oo dhisantay weeye nidaamka kanu dalikayd weeye waxa kanu waa nagu cusub yihiin intaan ka gaban karno si nidaamkaas uu qurux ugu muuqdo intaan ka gaban karno oo isaga ogolaano hadday sharciga jabiyaan hay-adaha u samaysan oo qabanaya laakiin inaan ku dadaalno marka waxyaalaha hadda ka mid ah waxaa weeye waxeeroo kale oo lacag oo ajaaniba dawladda baajiyada lacagtooda iyo ka badanba mucaaridka qaarkood dibadda ka helayay oo faafinayay waxaad ka warantaa Cabdirasaaq adigu waqtigii aad ra'iisul wasaare ahayd maxaad filaysaa in ahaayeen waxyaabaha isbedelka ee Cabdirasaaq Xaaji Xuseen lagu xasuusan karo ee aad samaysay maamulkaagii ama tallaabooyinka waqtigaygii muxuu ahaa muddada horta sidaas uma dheereen muxuu ahaa 3 sano meelahaasaan prime minister ahaa
dadka aqoonta wuxuu la haday raadiyaan waqtigeeyii xoogayga waxaan saaray waxa weeye wadankan in loo helo nidaam administration shaqaynaya oo hufan oo karti leh labada eray baan ku dhaqmay aniga karti iyo hufnaan nidaam administration ah oo muxuu ahaa aan corrupted ahayn kartina loo wax qaban kara ayaan ku dadaalay waxaan ku dadaalay dad badan oo awal xukuumadii maamulada ku jiray oo jagooyin wadahayay oo bilxaqiiqati intii xorriyada loo dagaalamayay dadaal ka soo sameeyay laakiin aqoontooda iska yarayd bacdamaha iyaga ka bacdigeed hadda dad badan oo wax soo bartay oo xiguba ay joogeen oo dhalinyaro ah oo wax soo bartay inkastoo ayaan waayo aragnimo jirinin labadooda waxaan isdhagay aqoontu inay roon tahay kuwa badan baan meeshii ka qaaday waxaan keenay kuwii dhalinyarada ahaa oo wax soo bartay waxaan rajaynayay hadday muddo joogaanin waayo aragnimadiina way helayaan marka iyaga ugu dhow muxuu ahaa hadhowto nidaam shaqaynayo efficiency oo wax garanaya in la helo iyo qurun inayn midkoodna inuusan jirinin ayaan xog saaray waxaan u malaynayaa inkastoo aan oran karinin miro weyn baa laga gurtay oo muuqanaya haddana waxaan u malaynayaa geedkaas inuu caleen cagaara inuu soo muujiyay baan qiyaasayaan intii haddaba u dhaxaysay waqtigii ay Soomaaliya xornimada qaadatay iyo markii ay Britishka xiriirkii diblomaasiga ahaa ay kala goosteen doonistii Soomaalidu ay doonayeen gobolladii kale ee Soomaalida kama soo reynin rajadoodii inkasta oo shirweynihii dadyaga Afrika ee la oran jiray All Africa People's Conference ee lagu qabtay magaalada Tunis bishii January sanadkii 1960 gobonimada ka hor la isku raacay go'aan u janjeeray Soomaaliweyn hase haatee kulankii kaasi ka dambeeyay ururkaasi uu ku yeeshay magaalada Qaahira isla sanadkaasi 1960 wafdigii Soomaalida ka socday si aad ah ayaa looga hor yimid kaasi oo aad moodayso inuu jid u noqday kulamadii kale ee Afrikaanku ay yeesheen oo dhan Monrovia shir isagana lagu yeeshay 2 bilood kadib waxa qurax ee la isla gartay waxay ahayd in jamhuuriyaddii Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka wada hadlaan sidii ay u dhameyn lahaayeen khilaafka u dhaxeeya ee ku saabsan sohodimaha marka qurax ee iftiinku u soo baxay dhinaca Soomaalida doodoodii ahayd Soomaaliweyn waxay ahayd madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan mar uu booqasho ku tagay wadanka Ghana oo isaga iyo Kwame Nkrumah ay wada jir war ay u soo saareen ay ku taageereen Afrika oo wada samaysata federation laakiin Kwame Nkrumah taageeradiisu waxa ay ku salaysnayd khilaaf xagga soodinta oo u dhaxeeyay Ghana iyo Togo ugu dambeyntii wixii rajaa oo Soomaalidu ay ka qabteen Afrikaanku ay ku taageeri doonaan waxa iyagu ay doonayaan waxay burburtay bishii May markii magaalada Sabah lagu qabtay shirkii ururka Afrika lagu sameeyay oo la isku raacay in xuduudihii Afrika sidii ahayna gumaysigu u dhagay aan waxba laga bedelin dhamaadkii sanadkii 1963 Soomaaliya go'doon ayay ka ahayd Afrika inteeda kale marka la eego waxa iyaduna haboon inaynu soo qaadno in wadanka Masar oo hormood ahaa dalalka Carabta oo isla markaasna ahaa ka sida xoog leh isagu ugu lug lahaa arrimaha Soomaalida Masaaridu mowqifka ay ku jirta inuu ahaa mid aad u adag marka la eego Soomaalidu waxyaabaha ay doonayeen waxa Masaaridu ay isku dayday sida Professor Ian Lewis oo ku qoray buuggiisa la yiraahdo Modern History of Somalia markii ay taagnaayeen arrimihii NFD in labada dhinacba ay raali geliso isagoo reedowga magaalada Qaahira ee Masaaridu qolaba afkeeda kula hadlay oo ku taageeray qolaba waxa ay doonayso markii labada dhinacba hadaba ay ogaadeen reedowga magaalada Qaahira waxa uu sheegayo ayaa Masaaridu arrintaasi ay joojiyeen Soomaalidu haddaba caradii ay ka cadhootay Britishka iyo saaxiibadooda reer galbeedku sida ay ka yeeleen arrimaha Soomaaliweyn ayaa waxa ay ku dhaqaaqeen sidii ay taageero meelo kale uga raadsan lahayn ra'iisul wasaarihii waqtigaasi Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu booqday Shiinaha iyo India waxaana laga filayay in taageeradu ay ka timaado dhinaca Shiinaha hase ahaatee waxa taageeradii ay ka timid dhinaca dalka la oran jiray Midowga Sofiyeeti bishii November sanadkii 1963 ayaa jamhuuriyaddii Soomaalidu si rasmi ah u sheegtay inay diiday taageero military oo dhinaca reer galbeedka oo dhamayd 6 milyan iyo badh geniga sterliniga waxaana ay qaateen taageero military oo Ruushku siiyay oo ku dhaweyd ilaa iyo 12 milyan oo geniga sterliniga ra'iisul wasaarihii waqtigaasi oo ahaa Cabdirashiid Cali Sharmaarke markii uu booqashada ku tagay Midowga Sofiyeeti waxa danjira ka ahaa Axmed Maxamed Aadan Qaybe Mr. Qaybe waxaan wax ka weydiinay booqashadaasi siday ahayd Cabdirashiid Cali Sharmaarke isagoo prime minister laba goor buu Moscow yimid mar waxay ahayd 1960 markii loo doortay prime minister ka bacdi bishii May 1960 marka madaxda Ruushka bariga halka dalka xukuntay oo Khrushchev u horeeyay ayay sarkeen
marka xiriir uun in la wada yeesho xagga dhaqaalaha in wax Soomaaliya laga taray yimaadeen marka heshiis baa la galay ku saabsan xagga dhaqaalaha dhow warshadooda tii caanaha iyo tii hilibka Kismaayo iyo ay kamid yihiin ayaa kala seexday ka bacdi 63kii iyo Cabdirashiid soo laabtay markaasna de waxa laga wada hadlay yani sidii gacan Soomaaliya looga siin lahaa xagga militariga arrinka waxa ka yar horeeyay wafdi baarlamaani oo Moscow yimid ayaa Cabdirashiid Ali Sharmaarke oo prime minister-ka xukuumad ahaan u soo egmaday Jaamac Cabdullaahi Qaalib inuu kala hadlo Ruushka inayna siiyaan gargaar xagga militariga naga gargaaraan arrinkaas waa noo fulo Khrushchev oo badda madow u jooga nasasho ayaan ugu tagnay halkaas waan la hadalay fariintii ra'iisul wasaaraha u gudbinay aduu markii dambe wuxuu waayahay ra'iisul wasaare naftiisa hay yimaado buu yiri ka bacdi ayaa Cabdirashiid yimid bishii July 63kii isagoo u socda China ayuuna soo maray weysarkan Khrushchev waxa markaa ay ballan qaadeen inay Soomaaliya diyaar u yihiin inay ka caawiyaan xagga militariga iyo hubka militariga waxaanu ka codsaday inuu soo diro generaalkii ciidamada xukumay General Daawud Cabdulle Allah yarxamee bishii October isla sanadkaas wafdi uu hogaaminay Daawud Cabdulle Moscow noo yimaadeen marka waxa la guda galay sidii macaawinadaas waxay ka koobnaan lahayd waana lagu heshiis baa la kala seexday waxa marka taa la socotay hadii hub la siinay bay yiraahdeen Ruushku dadkii isticmaali lahaa ahanan lahaa in loo tababaro marka dhowr boqol oo ciidamadeenii ayaa Moscow loo soo qaaday oo dalkii loo jeeday Soviet Union qaybihiisa la kala geeyay wax ku baranay halka marka ninka ay weydiisay intaas uu markaa ku koobnaa arrinta militariga ku koobnaa kaasi wuxuu ahaa Axmed Maxamed Aadan Qaybe oo ah danjirihii ugu horeeyay ee Soomaalidu ay u dirtaan dalkii la oran jiray Midowga Sovieti haddaba doorashooyinkii madaxweynimada ee Soomaaliya ka dhacay bishii June sanadkii 1967 waxa ku guuleystay Allah u naxariistay Cabdirashiid Ali Sharmaarke waxaanu bedelay Aadan Cabdulla Cusmaan oo lagu tilmaamo inuu yahay ninkii ugu horeeyay Afrika marka la eego isaga oo hab dimuqraadi ah lagu soo doortay hab dimuqraadi ah oo wax turxaan lahayn ku dhiibay taladii markii Cabdirashiid Ali Sharmaarke uu noqday madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliya waxa ra'iisul wasaare uu ka dhigay Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal waxa markii ugu horeysay samaysantay dawlad labada ruux ee ugu sareeya ay ka socdaan waqooyi iyo koonfurba waxaana burburay isaguna ururkii la oran jiray SNC oo ahaa xisbigii ugu horeeyay ee isu keena mudanayaal mucaarid ku ah dawladda oo koonfur iyo waqooyi ba lahaa xisbigaasi oo ay sameeyeen Sheekh Cali Jimcaale iyo Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal iyo mudanayaal baarlamaanka ku jiray oo 62 xisbi xilligaasi waxa dawladda Cigaal si xoog leh loogu eedeynayay in hantidii dalka ay ugu gashay doorashadii iyada oo xisaabta la sameeyay qaar badan oo kamid ah ay ku dhisnaayeen reernimo waxa si xoogoobay qabyaaladii Allah u naxariistay Cabdilaahi Suldaan Timcade oo lagu yaqaanay in qabyaalada aad u nacbaa aan idinku dhaafno min qalbila quraanka uu aqriyay qaableen ku araadiye kutuba sidii lagu qariraya غير غيرك